marka ma taagnaan ama soo dhicin way soo dhici doonaan saan maleynayo because aad baan u tirsanahay hadda balsaade ma jeel bal mariyo ma dhiga عبد الشكري أبان كلو كيريسن mahadi marka maasha Allah ku soo dhawaada kanaalka waa doonahay walaal aad iyo aad sharaf weyn ii tahay deeqana kanaalka ka soo muuqdo sax si balajinka Cabdi Shukri ana meel iska soo muuqano sax ka Cabdi Shukri ku soo dhaweynaya hadda ma adsan tahay deeqalaki iyo channelkeeda iyo daawadayaasheedaba farxad weyn bay noo tahay sida walaal la sheegay waa leega actorsan yahay filmo waaweyn baa lagu jiraa anigu inta Soomaalida iyo dhowr xabo meelahan ka muuqday way jirtaa laakiin leega jilaasan yahay deeqana laftigeedu waa jilaa marna waa dhinacyo kasta way gashaa marka waa kaaga mahad celinayna okay waxa maanta noo saaran miiska walaalkeen oo hidii dhaqanka Soomaalida oo hore arabna wax ka weydiino inta ka qaana ku sheegay deeqo ma san tahay aniga deeqo channelkay ayada iska leh ku magacaaban laakiin waa wada leenahay markii runta loo fiiriyo sax wana ka wada weynahay baan maleynaya oo waray dhahdi fiiriyay dhahdi soo fiiriyay adidaada ku soco iska saar daada lama sheegay ina ka weynahay horta ilaahay maad ka gaarto hidiyo dhaqan waa maxay hiddo iyo dhaqan horta qayb baan idin deynayna laakiin programka aan meesha u soo fariisanay oo ninka la yiraahdo Maadi baa wuxuu wadaa dhaqan ay Soomaalidu lahaan jireen hadda ma laha laakiin way lahaan jireen waxa wax laga weydiinayaa waxay tahay dhaqanku waa waxa lagu dhaqmo hadda gurigan waxba ku dhaqmaa sax gurigan waxba ku dhaqmaa waxay ku dhaqmaan alaabta waa lagu dhaqmaa reerka iyo odayga iyo xaaskiisu dee waa dhaqmaya wuxuu ku leeyahay reer dhaqmayaan nahna sax fiirso kelmaddu meesha ka timid oo asalka ay u laabanayso waa dhaqmaha ay ku soo dhaqmi jireen sax haanti baa ka mid ah ratigii baa ka mid ah dabarkii baa ka mid ah dabarka dee wax lagu dabro hogaankii baa ka mid ah aqal Soomaaliga iyo aqal hooriga ahaa meelaha aqal hoori laga yiraahdo aqal Soomaaliga ahaa baa ka mid ah maacuunka hoos yaala ma ahan waxan reer Yurub ay noo soo sameeyeen waxay ahayd waa mid aabba qoray qaadada maxaa noo ahaa fandhaal baa noo ahaa fandhaal qaadada wax lagu qaato xeerada wax lagu cuno macdan ay tumeen wiilasheedii farsamo yaqaankii aan u bixinay takoornay injineerinta caalamka weey dad lala diriray baan nahnaa anagu markaa fiirisid tumaalo waa injineerka dadka gawaarida soo saara dadka maacuunka soo saara waa dadkaas laakiin anaga keena maxaa la yidhi waa midkeen gabadhiisa lama guursado ha ka guursan waxaa la cunin oo baa la wada yidhi meesha maxaa ka baxay injineeradayadii baa ka baxay horumariyaashayadii baa meesha ka baxay waxaan liidnay waa kuwii annagana soo saarayay waa kuwii wax noo sameynayay waa kuwii wax noo qabanayay baa meesha ka baxay hadda fiiri inta guriga taalo hal xabo oo Soomaaligu sameeyay kuma jiro ka yaa sameeyay made in China niga yaa sameeyay bal gadaal akhri halkaas ku qoran halkana waa made in China haye yaa sameeyay made in China kuwan wax ka qurxa badan yaa soo saari jiray wiilashayada tumaalada lagu sheegay midgaanka lagu sheegay la yiri waa la takoore baa soo saari jiray kuwa yigi baa dheer naga ilaali lagama guursado alla yasa kaas waa kama mid ah markii la dhiiri waaba kan baa soo qaaday waa u taalaaba balka ana soo kan waa kan anagu kaan lahay quruxdiisa bal wax yar ii qabo fiiri kan waa haruub sax kana waa dhiil ama dhiil kana waa harag weey kan waa kii sidada u ahaa wey haddana muxuu ku jiraa haruubka lagula xirayaa marka halkan saan loo soo xiro uu go'ay saan baa loogu xirayaa hadda magacan dhiil ma aha tan waa dhoqol Soomaaliga waxaa lagu yidhaha dhoqol ilmaha yarkaa baa loogu talagalay waa inta laga weyntahay waa inta baadiyaha tegay caanaha ilmaha yarkaa loogu shubaa caraf markii la culo markii la culo ama la deebiyo deeb
waxaan guduudka u jeedaan waa dhir kale ديب دم بس بالغش بيا قول maya قري. waa geed nagaar ah اوكي oo jilab ay caraf caanaha laga shubo adoo dhan bismillaahi raxmaani raxiim udgoonka iyo quruxda iyo adyaabis bakteeriyadu dilaa waka hadda saasaa loo qabanaya markii la furayana والله انت نقول انت والله sama jeedin tartiibna saasaa la oranaya waya deeqa waxa way iga weydiin kartaa maxaa soo haray aan maacuunka xaggan iska dhigno mahdi maxaa loogu yeeray mahdi waxaa loogu yeeray tinta ayaa lala bixi jiray شاربها shaarbahana waa la miiqi jiray haddii ku yiraahdo ninkaa shaarbku miiqday waa kibiraani هي سنكو كادلا sanku ka hadlaa ina libax سنكا جابتي waa ku kaa هي shaarbahan dhana wuxuu ahaa jiraba سلطانمدي بس سارجي suldaanadii waa salan jirta weliba boqortooyadii cismaan yuusuf keenadiid iyo nimankii xaggaas ahaa اكزاكتلي baa la bixi jiray sax niman nagu soo xigaa jiray talyaanigaan u malaynaya hindidana hindidana way sameeyaan laakiin waa kibiraani dad kibirka badan الا اساس marka وصل waxaa لابتا mahdi waxaa weydiisan ما horta ani ma kibir badni ilaahay buu kibir ku sugnaaday Mm. laakiin waan ka helay mugta childhoodkaaga markaa yar tahay filmaanta daawatid sawiraada familkaaga daawatid sax adu soo waxa ka baxaya. keenta marka anu waxa tinta waxaan ka karorta waagaa yaraa sawirka aabahey aan daawan jiray waagii yaraa taas teenage-ka ahaa way oo wadankana markaasuu maasha allah ahaa sax timiis afro ahaa saraawiishina waxaa xasuustaa alaabtii bid bidka markaas isdii jiray maalmaha ka mida saan waa samayn doontaa maantana waa sameyn maantana waa gaartay haa way maxay soo kordhisaa tintu wallahi tintu waxay soo kordhisaa su-aashaas horta wanaag badan bilaa intay yar tahay intaad dhisaysid unbay falxun tahay maahan markay weynaato dadaan timo lahayn iyo wax timo leh oo kulli maasha allah kulli in laga cawriyo miyaada ka may baqayno may kama kuwa badan oo bidaar leh horta way ku buuxaan magaalada way ku soo bataan laakiin waa subaxdii markaan baxo salaada markaan tukadaan xogaa xijaabkaan akhristaa yaasiin ilaa soddon waa xijaabanaha dee ninkii fiiriya dinta ma xijaabtaa waa xijaabaha saddex yaasiin baan saaraa saddexdaas yaasiin waa xijaabanaha tinna jooge hadda tintan adigu hadda waad baratay waa dreadlock baa lahaan jiray hobbigaa ka hesha miyaa ma may tinta waan ka helaa dhaxal ma ku waxaysatay labadan aabaa ka raacday may horta jiinka aabbaan ka raacay aabaa ka raacay aabba timo badnaa jiray Sax. allahu mustacaan aniguna waan ka helay hadda sinis waxaa sameynaya hadda waa 8 years waa sameynaya timaha waa bixinaya waa bixinaysa bixinaya haa Sidee mar sano waan ku jaraa yaalaa? mar waan bixiyaa mar waan jaraa mar waan bixiyaa Mm. laakiin hadda waa markii ugu dambeysay waa fiinaya shaarbahana awoogaad familka hore ka raacada shaarbahaniyo waxaan ka arkay salaadiintii iyo raggii laakiin hore maxaa loo yiri Usmaaniyiinta intaan hore diinta ma ogolo waa markaad shaarbaha markaad garka xiirtid garka xiirtid markaa garka xiirtid waa karaahi ama ay afka kaa soo galayaan Ah, oo bushimaha korkooda saa usoo fuulaya sax waa karaahi laakiin inta ka horeyso waa xarago waad ku xaragoon kartaa rago haddaad shaarbo waaweyn leedahay dayso waa xarago timo dhaadheer haddaad leedahay dayso inuu raggu dhallinyaradana ma garanayo hadda asoo waxaad dhalinyarada arkaysaa 20 jira Eh. bidaal buu leeyahay ama ku qarinaysa adigu may waa kana generationkan Ah. ma fahantay Ah. walaa wax ka qaldan ma garanayo Hay. laakiin waa Maya, meel bay u socdaan dadkii hore dadkan hadda isku mid ma deeqaanu su-aal baan weydiinaya Haya. qofka tinta badan daysta iyo kan aan daysan muxuu farqiga u dhexeeya waxaa farqi u dhaxeeyo Mm. kantinta jarta Mm. maalinba qarash baa ka baxa aniguna qarashiga ma baxaba waa halkaa haddaan timo jaraa tago waxaa iga badan 100 shilin ama 50 shilin oo dee line laygu sameynayo keliya iga badan dee ninkana markuu timaha soo jaranayo 500 saan hadda 600 qarash badan ku hadda baaqday waxaan save gareeyey 5 months baan save gareeyey lacagta timo jaraysa soo halkaas maaha dhaqaale burburin maada samayn Dhaqaale burburin ma oo dad badan oo dhaqaale ha kaa israaf ma sameynin Maya, waa israaf timo jarashada badan waa israaf baan u maleeyaa laakiin hadda dad baa ka beriiseeya oo dadkan u soo shaqo tegey ninba meel baa ilaahay u geliyey Sax. kuwaas soo kamaada hor istaagin shaahoodii ay heli jireen awal bayna wax badan heli maya jireen kuwaas shaahooda way helayaanoo warsaaqada tilaaha qoray adiga kama Waa heshaagi karo laakiin adigii waa kan adigii waa la fadhiya xataa dadaa waxaan arkay iska tago oo bidaar leh oo tin lahayn Ah. iska taga maya afar dadka bidaarta le timan bay leeyihiin timaha dhinaca hoosta leeyihiin marka waa inay simaan xeerinaya dadkaasay dadaa bidaar leh oo xiiran waxaa arkaysaa meesha oo tinta lagu jaraa jooga ayaga maxay ka suubinaya ninka meesha tin baa la jarayaa gar baa loo xirayaa laakiin anigu waxaa u tago ma garanaya I don't know Goorma the ugu reasonka u dambeysay? tagaa ya goorma ugu ma xasuustaniyo waxaa igu dambeysay
filinkii intaanan bilaabin Eh, filinkii astaan aan duweyne ninkii astaan, ani Days. adiga intaanan bilaabin baa igu dambeysay Eh, waa January Eh. sanadkii hore last year jiray dadku maxay ku yidhahdaan marka bulshada dhex maraysay noo timo weynay dhihi Maadaama- jireen maadaama aad ka duwan tahay walow hadday ta lagu xantay nin cali la yidhaahdo iyo habi way ku xanteen haddii. waxay yidhaahdeen nin baa soo socda nin baa sugayaa baan ku yidhi ninka tinta weyn bay yidhahdeen magaca mahdi maybe bay magaca ay garanayno waa Ah. isku cusbeen Ah. hay baasine marka dadka maxaa kala kulataa bulshada may dhexdeeda dadka hadda bari horta barihii hore Mm. iyo timaha caadi ah hadda bariyaha waxaa soo baxday sharp weyn sharba weyn intaasi waxayna ka tahay qareexo waxaa lala bixi jiray in muddo ah ilaa dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre ilaahay ha u naxariistee intii dhimatayba marka dadku surwaalka hoosna halaf bay ka dhigi jireen dhexdana waa la caynsan jiray ama stiinlaha lagu tuuran jiray ama dee xaragay ahayd nimanka lugahan marka waa la ballaarin jiray deeqaay ah markii intaa la ballaariyo tintana waa la badi jiray waa la badin jiray dhaxda weliba waxaa dhaxda jiray laakiin wiilashu way yaraa jirta maxay tahay haddana dadka dhaxda u weyne dadkii dhexda hadda u weyn Wallahi, kaas waa la waa isfasaxay surwaaladii ah qofka ku dhagaa loo soo fahmi lahaa laakiin kaas aniga ma cali baa anaga ya cali baa waxaa loo leh maya hadda xaaraanta la basadaa u malaynaa siday tahay Exactly, wiilashii yeah. hore oo dhan marka heesii hore xataa arko Mm. wiilashu waxay wada ahaayeen hadda gabdhaha way ka wiilku dhex inuu dhex yaraayeen yar yahay iyo inuu gabadha dhex yar yahay kee fiican hadda dee Labad- labadaba inay dhex yar yihiina fiican dhex yar dhuuboy baa Ha. la oran jiray. laakiin nin dhex yar see noqonaya wallahi waa is the best dhanka gushu ku fiican yahay sidii la yiri maya maya gogol ah ku wanaagsan yahay danin buuran gogol waxa ka sheegay mar haddan ku leeyahay yaa yiri ka research ku sameeyay oo research badan baa lagu sameeyay Ah. anigu ma hadda reer galbeedka ku sameeyay hey qof walba ku sameeyay ma fahantay waxaa la ogaaday Eh, inuu de qofka markuu slim yahay Ah. maasha allah ilaa goormaa rabtaa timahana inaad sii wadi ilaa aan ka duqo insha allahu tacaala baad u wadaysaa okay meeshaan kusoo gabagabeynaynaa marka intaasi waxay naga tahay fani walaalkeen dadka hore inaa marmar gashano waayihii aad, hore aad, maasha aan dadka allah soo xasuusino Ah. aabbayaashooda iyo awowayaashooda Dadka ninkana hore berigu waxay ahaa jiray haddii aan laftigeygu mar baan saa u sii daayey Mm. hadda laakiin bidaartu way gashay Iyada dambe way bidhaamaysaa waa celceliyaa intaa hadda waxaan ku jiraa dadka yidhaahda Mm. hayga taaban kor intaan yartaa wax yariisa laftigeyga lacag badan lagama qaadan laakiin waa dhib tegey baa okay intaasi gabagabo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu allah qareexa waa